السلام عليكم. marka hore magacaygu waa Ibrahim Adan waxaan ku magac dheerahay Siyaad Gentle diyaar garowga ciid fidriga aad iyo aad baa si fiican loogu soo baxay alxamdulillah si wanaagsan baan u arkaa inay dadku ganacsanayaan restrictions iyo macnaha ii sheegay waxyaabo lagu xakameeyo cudurka coronavirus-ka ii sheegay aad loo yareeyay marka alxamdulillah dadka si fiican bay isku soo baxeen waxyaabo kala duwan yihiin number 2 waxa waay ciidii hore inay jireen restriction badan lockdown uu jiray dadka aysan soo bixin salaada aysan tukanin si fiican aysan u tukanin ciidan laakiin alxamdulillah ii sheegay lockdown-kii wixii dhanba la fududeeyay dadka tahajjudka tukadeen ayagoo maartay si fiican u cibaadaystay u faraxsan ay ciidii u cumaatay yani ciidan hadda aysan ciidaysan rabaan alxamdulillah si fiican ay u ciidaysan rabaan waxaan ugu bishaaraynayaa inay aad u farxaan inay maartay ducadoodii maartay Ilaahay uu ka aqbalayo dhibaatooyinkii badnaa ee ii sheegay coronavirus-ka Ilaahay uu naga dulqaaday badankooda talaale imaadeen Ilaahay uu noo gargaaray marka aan leenahay ii sheegay alxamdulillah Ilaahay cibaadooyinkiina waxaan leeyahay islaamka dhan aan ugu bishaaraynayaa cibaadadiina Allah idinka aqbalo si fiican loo farxo ciidan maartay ha la duceysto Allah naga aqbalo cibaadadii wax walba aan soo sameeyay insha Allah si fiican loo ciido waxaan dhihi lahaa dadka 13 taariikh 13 bishii hadda la soo dhaafay bilaabay soonka aad ugu faraxsan yihiin maxaa yeelay waa cibaado u kordhay dadka kale 14 waaba aad ay zaid ay ka sii faraxsan yihiin ayagana maxaa yeelay 28 bay wahayd maanta hadii la furi lahaa 28 bir bay soomeen bay ka micno lahayd marka dadka 14 soomeen farxadooda zaid way dadka kalena farxadooda zaid way maxaa yeelay soonkan si fiican maartay waqtigu dhamaaday iyo waqtigu bilowday wax yar ay ahayd ayuugu cararay marka hal maalin kale noogu darsantay waa cibaado noogu darsatay aniga kula hadlay taariikh 13 aan soomay marka alxamdulillah cibaado noogu kordhay hal maalin oo ziyaaday waxaan leeyahay ummadda islaamka meel walba ay joogaan ciid wanaagsan si fiican ha loo ciido waxaan leeyahay hambalyo dhamaantiina inta soo cibaadaysanay intaan ka soo faa'iideysanay iyo inta qaladaad ka dhacla naga cafiyo laakiin inta cibaadaan sameeynay Allah naga aqbalo yaan leeyahay Allah naga aqbalo inuu muslimiinta dhammaan waa u duceynaya dhibaatada inay Ilaahay ka dulqaado waxaan la wadaagayaa familkayga waalidiintayda walaalahayga dhammaan inta maartay asxaab aan nahay inta qaraabo aan nahay inta friends aan nahay inta maartay oo customkeena meeshan aan ka shaqeysano noogu imaato dhammaan waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak dhammaan reer Kakuma iyo inta customkeena waxaan leenahay ciid wanaagsan